hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka dowladda Jubbaland oo kaashanaysa shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa gacanta ku soo dhigtay dhagarqabo ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab ka oo lagu magacaabo Bashiir Nuur Bashiir magaciisa afgarashada ee kooxda khawaarijta dhexdooda looga yaqaanana uu ahaa Nasrullaahi Rubesh iyo Muraabid kooxda khawaarijta ee Al-Shabaab ayaa tababaro kala duwan ku soo siiyay Bashiir Nuur Bashiir gobolka Jubbada Dhexe gaar ahaan duleedka degmada Bu'aale ee caasimadda Jubbaland iyagoo soo baray tababaro kala duwan oo ku saabsan sida loo tuuro bambooyinka wax loogu dilo bistooladaha iyo hubka kala duwan ee markaas la adeegsado meeleeray Bashiir Nuur Bashiir meenka daladay magaalada markabka magaca nimanka iiga magaca oo magaashay inkasaas shabaabta inkasaas mahaaye Rubesh Nasrullaahi Muraabid intuu ay inkasaayaan ka bacda badanayni dhalinyar badan hayni oo mani waday gaari korni hamilmeen jay buarshani wabiriso higa maaskar nin furi maaskarka madimeen nin furi maaskarkii nin dhamaaday oo maaskar oo gordhan nin dhamaaday hadana hana qaadi macallimiintii guriga iyo guri aakmeel ku iyo baran nabadi oo meelireen macallimiin kala niisheen hadana oo bistoolad bamba silintoro iyo barayaan niisheen madikuwas iyo niisheen iyo baran marka meekii hiray RBG siin dhabahay wax lan galaw dan iyo goon ahaan inay bari ka bacdi waan soo waday door wax la yiraahdo baan noo furay oo qofka masqays macna lagu dhuminay hadhow cabsi iyo darjilcaan buu unsan qoreenin waa yar yahay iyo arantan waa ka cabsanayo baan san qoreen ayaan galiyay oo wixii hada dhiminaysa waa dhiminayo runtii ku sheegaysid aan gali marka oo waxbarashadii galnay markii aan galnay waxbarashadii 3 bilood waxbarashadan ku jirnay waxbarashadii markii 3 bilood aniga aan ku jirnay aan ku soo baxnay waa soo dhameeyay waxaan keenay jilib waa imaanay waxa kala naga sii baray waa qofka markuu socodkiisa waa inaa miisaantaa qof shacab haduu yahay qof ciidan lasoo tababar u wato socodkiisa waa inaad miidaantaa uu yahay intaasi kadib Bashiir Nuur Bashiir waxa uu isku soo diyaariyay safarkiisa uu ka imaan lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyo inuu soo dego magaalada iyadoo soo gelida magaaladana ay u fududeeyeen Yacquub Bashiir Cabdi oo adeerkii la dhashay aabihii iyo sidoo kale nabadoonka beeshiisa oo ka soo damiintay laamaha amniga markii uu magaalada soo galay magacay Yacquub Bashiir Cabdi waa dhanka macnaha gosha ka imaadi adeer waa soo socda gosha ma Kismaayo rawa way marka ay damiin iiraadi ku soo galo Kismaayo rawa hay muskabiiro u tagay marka muusa yarka soo damiino baarushay way marka hay way saasa ku soo gali marka mana arkin hadan soo galmaanta sadan naftiis ana wasaas u damiintani hadan mana arkin daliska uu hooyadii bas habeenkayga ku soo bari man arkin hadan shaqaala imaad man arkin hadan shaqada qabsada aadi hadan dahlisku aadi man arkin mar kale arkadan oo guriga gabadhan hada ana adeerku aboowe gurigiisa asoo maalin hadan ku kulmno bas hada waxa wareysteen bas hay shalay imaan kaas asaas hay sida leeyahay bas waa kale tagna sidii markaasna bas man arkin hadan shaqadan la soo baxay kadib sheekada tan oo kale jirta macna sidan foolxumadan oo kale damiinkan haliska ilaaliyo saan oo kale bismillaah aniga nabadoon ko jeema oo u Bashiir Harmayaasa oo nabadoon Jubbaland ka tirsan aniga waxaan xaqiijinayaa oo hadda la hor keenay wiil anina wasuuda aan ka damiintay oo hadda qalabkan lagu hayo oo lagu eedeeyay oo lagu hayo oo hadda horteeda la keenay ayaa la ii sheegay waan lagu cadeynaa in qalabka soortiisa ay yeelaan odayaasha nabad oo ilamadka waxaan ugu baaqayaa in ay qofka isku hubiyaan marka loogu yeero isku hubiyaan ugu baaqay insha Allah qaada iyo qariya waa isku mid silsilada soo galida magaalada ee dhagar qabahan waxa ka qayb ahaa Nuurta Abaadir Aadan oo qaraabo la Bashiir waxa ay qol uga kireysay xaafadda shaqaalaha ee magaalada Kismaayo guriga oo ay mas'uul ka ahayd Tuuma Sangoor Maxamed dhammaantoodna waxaa suurta gashay in ay gacanta ku soo dhigtay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubbaland hadda
waxaa loo haystaa dembiyada ah in ay qayb ka ahaayeen qarinta iyo dejinta magaalada dhagarqabahan ka tirsan kooxda khawaarijta ee al-shabaab. Bashiir Nuur Bashiir waxa uu isku dayo ka sameeyay magaalada dhexdeeda isaga oo kooxda khawaarijta ay u keeneen bastoolad iyo bambooyin la doonaya in uu ku howlgalo iyadoo durba uu samaystay xirfad shaqo oo uu magaalada ku joogo si uu uga dhunto gacanta laamaha ammaanka. ka bacda haddana markii guri aan imaaday 4 bir ahaan la joogo walaasheen tusay oo sheegay markii uu sheegay tasmiyaha guri ay kireysay guri ay gelisay marka alaabtan waxa iisoo aan raadinay muddo 10 bir ayaa khad ka soo jirta raadinay oo iisoo socotay muddadii 12 bir aan raadinay waa la ii keenay alaabta markii la ii keenay anina waan la wareegay waxaa la igu soo siiyay sayidkan oo marakamiis iris markuu salaada loo dhawaa ii balimi salaada waa waayay markii salaada ii balimi aan ku waayay ka bacdo waa baxay horbeena ayaa sheegtay beenola tahay dhaafandhay 3 saa maalin buure ah ayuu meel waxa ii qoray Hazazi boy baxashana gisac oo galay gisacdan oo caanaha ayaa la geliyay hoosteeda laba dhagax ayuu hoos dhigay meesha kala soo baxay 3 saa 20 markii ahayd guriga la tagay waa iska fiiray inay wax raacsan yihiin waxana maraasano waa hagaajay gurigan dhigay waa bix magaaladan galay waa soo laabtay ka bacda haddana wuxuu ugu jiray gaarigaan amka dhismo wax la wareeg ku shaqaysid anina gaarigaan dhismo hataa hadii aan waay وعنو هدو أنهل أمجر أو رينج إنه أنا أصلا قطع أنهل اسمريو كركي اسمريو أيو إنه أديك سد أيو دري رينج وأنا أصلا قطع هذا سيجار أبين وأنا جريجي كنا هذا صودا أما كلو حسن أبين توا أنا جريجي كنا ساس أنا كبعد جارج أنا سوق كريدي intii korka wax marin leedna gaargaan raadi baa igu raanidi gaargaan baraadi $1 kaga karay ilaa kono gaajaan qowt u raadinay maahan waa shaqo barbaleem dhumiso waxad aniga anoo guriga ku jir oo baxashi agteeda tala oo telefoon anoo ku hadlay hurdi ila baxday telefonkeyga ay soo kacay nasrulaahiyo 15 talaabo kadib baxashi guriga ka dheeree iidan raas miya oo kugu soo socdo ku dheeray واسوك هو كسبه وقاطع إنه حبت رعسنتها فيها بدنا مرعسنين وقاطع بعد ذا كدوي جروج مركان كباحي بحش ميل أنقلنا جروج جنجلك أوجبين على ساق راعي أنت اللي ساق راعي بحش ميل أنسجلي وميل أنسجلي وصلت التلفون كلمة حد في دي سنة وصلت راح في دي سنة أنا التلفون كلمة حد وصل دي بناي حاول أنف في دي قال ساق جلي جروج أشال جلي والباري بنان كان أنا بحي guriyaasha markii la baareedan guriyaas soo galanay waa soo galnay ka bacda ciidamadii la sheegay ayaa naga imaadeen markii la imaadeen waa nabadi sidaas ayaa la qoday fiidnimadii 18 bishan maanta dabayaaqada waxa uu bamgacmeed ku tuuray afaafka hore ee hotel Madiina X Cascasay ee magaalada Kismaayo nasiib wanaagsan ma jiro cid wax ku gaartay taas oo ah hawshii ugu horeysay ee uu qabtay dhagarqabahan shaqadii oo aan qabtay oo igu horeysay هاي تلكن سيموها أو هل فهم عن كتورة أو خف وددنا وح عن كجارين تولد وح عن قصنا خف بالبوجو هرت لعك ميلك كعم هذا أنا ما هنا كي يجوا هنا دمسا تبدأنا ويصور دمساي وهاي ميلك سنوي جيسا وين دمسا خف القلب ده هنا كل جيل جمهوريني أنا قلنا ومدن بيتك كلا صوص عدو كل جيل معهن كل جيل هدن waxaan qof kaligiisa sameynay maan wax dad khaldayo waa lacag iyo wax bilaahi lagu soo aqriyay ayna waxaan ka casanayaa hadii ifis iyo diltaan kale wixii aan isoo socdo ma sheeg kare hadii ifinayaan hadii dilaan dhaxdooda bayda gacantooda ka jirtaa kuleedo gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdullaahi Maxamed Faraweyne ayaa warbaahinta Jubbaland u sharaxay sida ay laamaha ammaanka gacanta ugu soo dhigeen dhagarqabahan ka tirsan kooxda argagixisada ee al-shabaab
iyo dadka u fududeeyay soo galidda magaalada. waxa uu fariin adag u diray oo uu u digay nabadoonnada damiinanaya dadka aysan aqoon, waalidiinta iyo dadka kireeya guryaha kala duwan, kuwaas oo mararka qaar qayb ka noqon kara dambiyo waaweyn oo dad naftooda lagu halaagay. waxaan rabaa halkaan uga mahadceliyo mahadsantihiin ciidamada amniga ee Jubbaland qaybaheeda kala duwan, gaar ahaan hay'adda jiisa, shaqo ballaaran oo ay bariyaha kan magaalada Kismaayo ka waday oo lagu sugayay amniga magaalada, isla markaana lagu raadgoobayay kooxaha nabadiidka Soomaaliya looga yaqaan khawaarijta. saa u jeedaan waxaa lagu soo qabtay qaybo ka mid ah xubin muhiim u ahayd iyo qalabkeedii oo loogu talagalay in dadka reer Kismaayood iyo guud ahaan Jubbaland oo dhan iyo ummadda Soomaaliya lagu dhibaateeyo. waa mahadsantihiin, waxaad qabateen runtii shaqo wanaagsan, dadka iyo dalkuna waa idin hambalyeynaya. waxaa kaloo meeshaan fadhiya nabadoonkii soo damiintay oo isagu mas'uuliyadda ka ahaa inuu magaaladan soo galo, hay'adaha amnigana ay madaxiisa ku soo galeen. waxaa kaloo meesha fadhiya ninkii ku xiray nabadoonka oo yiri waa wiilba adeer baan u ahay, isagana keenay, isna meesha fadhiya. waxaa kaloo fadhiya gabadhii guriga u kireysay iyo tii ka kireysatay. dhammaan kiiskaasu Soomaalidu waxay tiraahdaa waa qariye iyo qaybiye iyo qale, waa isku wada dambi. aad baan mar labaad ugu mahadcelinayaa kiiskaas sida ay u soo gunaanadeen iyo dabagalkii muddada dheer ay ku hayeen. waxaan rabaa marka inaan baaq u diro dadka reer Kismaayood, baaqaasoo ah dhowr qaybood. marka koowaad waxaan rabaa inaan la hadlo nabadoonnada. nabadoonnow caawa u jeedaan qayb idinka mid ah oo caadaysatay inay shabaabka soo geliso, in hay'adaha amnigu ay gacanta ku dhigeen. waxaa markaa idin leeyahay ha damiinan qof aadan garanayn. waan ognahay in inta idin soo wacaan idin oranayaan reer hebel sheego oo ninkaas aan kugu soo dirnay reerkaaga ku qor oo uusan ahayn. kuwa saa sameeyana hay'adaha amnigu waa ogyihiin, waana daba joogaan. oo iyagu nimuusan nabadoon u ahayn intii shabaabku khawaarijtu la soo hadasho la yiraahdo qofkaasu sheego adugu soona damiino, kuwaasna waa lagu raajiraa. laakiin saasaa laga dhaxlayaa. waxaan ku leenahay xataa haddii lagu soo waco oo khawaarijta gobolkooda ku soo wacaan, hay'adaha amniga u gudbi. nafta Ilaahay baa xukmiye goortay dhimanayso, cidina ku dilan mayso, khawaarijna waa jabtay. u gudba hay'adaha amniga si tallaabo loo qaado. iyaga intaasaan leeyahay. kii ku xiray oo isagu la shaqaynayana waa la dambi. baaqay kale wuxuu yahay dadka guryaha leh. caawa gurigii lagu soo qabtay ciidamada amniga la wareegay, kadibna dowladda Jubbaland baa lagu wareejinaya. qofka muwaadinka ah oo guriga lahow, gurigaaga ha ka kireyn qof aadan garanayn. qofkii kirada kuu soo doonta kow wargeli gudoomiyaasha xaafadaha iyo waaxyaha, ilaan guriga xaafad buu ku yaalahay. marka labaadna warqadda guriga lagu kireysanayo ka qaado hay'adaha amniga. inta haddaadan samayn oo gurigaaga ka kireysatid khawaarij dadka iyo dalka dhibaataynaya, adiguna waxaanu ku aqoonsanaynaa inaad la mid tahay. gurigana dawladda la wareegaysa. haddeeraa marka nabad qabtaa, gurigaaga ku nabad qabaa, fadlan ha ka kireyn. Soomaalidu waxay tahay guri wax ka weyn la gashaa waa dilaacaa. intaa shilin doonaysid naftaadana ha haligin, hantidaadana ha baabiin. iyana saasaan leeyahay. dadka reer Kismaayoodna waxaan leeyahay hay'adaha amniga la shaqeeya. khawaarijka balkeedii waa dhacay, waa tagtay. hadda duurkaan ay wareegaalaysanayaan, odayaal bay ku wareegayaan oo waxay leeyihiin lacag jeebka noogu soo qaad. kuwaana waa la soconnaa. qof Allah iyo qofkii aanu ku ogaano isagoo hawsha ku jira magacuu doona ha lahaado, wuxuu marayaa ciqaabta rasmiga ah oo khawaarijtu maro.
khawaariijtuna laba maaha qofkii la shaqeeya iyo khawaariijku waa isku mid wax saddex liyaadaale ma jira ama waa inaad dawladda ahaatid oo muwaadin Soomaaliyeed ah oo sharaf leh oo karaamo leh oo loo xurmeeyo dawladda la shaqeynaa ahaatid ama waa inaad ayaga ka tirsan tahay oo aad tahay khawaariij u shaqeeya sharci khawaariijta la mariyo sabriya Soomaali warbaahinta Jubbaland magaalada Kismaayo